وقصة أماديد أولي النور وهل شعب هل قومية هل أف هل لغان بل سوا شعب أي حدود كلاقاي بالسي سيان وليون يدودا كسار من نمادودا قرنيجي تغي وعالن كريدا الصومالي ذا وين سيدي كنا سعودي راقي ضمر صوماليات وانو دقالمين كرسي إيا مقام بل سعود دقالمي شرف سعودين إيا كرامة صوماليات تاريخ الصوماليات معها كلية بو كجر مكتبات وديك إيا النيف وغيري يقول وحصوص قبانيسة أولي هالكيتا سيد محمد عبد الله حسن هالجماع هاليي iyo culimo Soomaaliyeed ma uusan ahayn mid u qaada seeb si uu wax u burburiyo wuxuu ahaa mid u qaaday si uu dad u mideeyo dhaqdhaqaaqii daraawiishta ee hogaaminayay wuxuu ka mid yahay taariikhaha dhifka ah ee Afrikaanka madow ku dhiday gumeysihii reer Yurub wuxuu lahaa hadaf ah hal dad iyo hal calan waxay ahaayeen kumanaan Soomaali ah oo isaga garab taagnaa halku dhigooduna ahaa dhulkaaga dhowr sharaftaada ilaali darwiish inkasta oo uu geeriyooday 1922 riyadiisii ma aysan dhiman waxay ku dhex noolaatay qalbiga jiilba raaca waxayna noqotay ilays oo qof walba oo Soomaaliyeed ku daydo waxaan xasuustaa hooyaday oo yaraanteedii iga sheekin jirtay in daraawiishta aysan kaliya ahaayeen dagaalyahan oo ay sidoo kale ahaayeen riyooyin nool waxaa lagu garan ogaa himilo halgan iyo hansare salaad iyo calan midabkiisu ahaa duug iyo casaan isku xardhan oo duugu u taagnaa barwaaqa sooranka casaankuna u taagnaa xanjirihii ay u qubeen dhulkeena sayidku wuxuu ahaa codkii gumeysidiidka codka ay dhalinyaradu ilaa maanta maqli karaan haddii ay aamusnaanta ka kici lahaayeen mid ka mid ah culimada halyeeyadii halgamada Soomaaliyeed Sheikh Xasan Barsame wuxuu ka mid ahaa halyeeyada u soo baxay Soomaalida wuxuu ku dhashay agaarka Jowhar bartamihii qarnigii 19aad wuxuu noqday wadaad caan ka ahaa jiinka Shabeelle hase yeeshee kuma ekaan culimanimo wuxuu noqday halgamay sanadii 1920 Sheikh Xasan Barsame wuxuu bilaabay kacdoon ka dhan ah gumeysiga Talyaaniga wuxuu hogaamiyay dagaalo culus oo ka dhacay Jowhar Balcad oo xilliga loo yaqaanay Taytayley Buulo Burde ilaa Hiiraan dagaaladiisii waxa xoog u taageeray beeraleyda Soomaaliyeed iyo dad badan oo rayid ah Sheikh Xasan Barsame wuxuu diiday canshuurta lagu soo rogay shacabka wuxuuna yiri Soomaali laguma haysan karo diintooda iyo dadkooda inkastoo uu Talyaanigu uu damayn qabtay wuxuu dhigay xabsiga haddana magaca Sheikh Xasan Barsame waxa uu u baxay sidii halyey cadaaladoon ah wuxuu ka tagay dhaxal taariikhi ah diin geesinimo iyo gumeysidiidnimo aan gamashan lahayn Sheikh Bashiir Xasan Yuusuf ma ahayn sheikh siyaasi kaliya balse wuxuu noqday hogaamiye wuxuu ku dhashay gobolka Togdheer sanadii 1912 wuxuu ahaa wadaad cilmiga diinta lagu yaqaan kana baxay xarumo islaami ah oo caan ah 1945 Sheikh Bashiir wuxuu kacdoon nabadeed ku hor keenay gumeysiga Ingiriiska ee British Somaliland wuxuu codeer ku diiday in gumeysi loo yeelo sida uu rabo culimada laga aamusiyo dadka iyo diintana oo sidoo doono oo faragashto waxa uu isu bedelay dhaqdhaqaaqa wadaniyadeed isagoo ku caan baxay halku dhigii qof walba oo Soomaali ah waa inuu ka dhiidhiyo dulmiga gumeysigii doorweynaha Ingiriiska wuxuu ka baqay dhaqdhaqaaqa Sheikh Bashiir wuxuuna xabsiga dhigay Sheikh Bashiir kadib wada hadallo lagu sii daayay sanadii 1945 ayuu ku dileen magaalada Burco isagoo salaad subax ka soo baxay balse dilkiisa wuxuu noqday dhimbilkiisa halgankii gobonimo ee Soomaalida Sheikh Bashiir ma dhiman magacaasi wali wuxuu taagan yahay geesinimo garsoor iyo gumeysidiidnimo waa cod wali laga maqlayo min Burco ilaa Boosaaso Buur-Hakawa ilaa Beledweyne waa tuulaha abwaankii weynaa Xaaji Aadan Afqalooc oo isoo laftiisu kamid ahaa halgamayaal uu soo halgamay afkooda iyo adinkooda ummadaan wuxuu yiri Buur Bashiir lagu shanaqay daaragtiina damal la hargalaabay jabshin waqay duloobeen dahriga iyo laabtay rasaaskiga daloosheenay isaga oo damiyo dhiig laho mara ku duuduuban dadkii uu nacaba iyo kufra daawashu yimid dacsad iyo ihaaniya caqba loogu sii daray meedkiisa daahira markii dibadda loo jiiday nimankii dilkiisa qirtiyay idinka duunkiina kolkii aaska loo diiday waa wada dul joogteenay ma damqana jidkiina markaa waa ku diirsaday nasab hada duriyadiistiin kama dareerteen duur looma jabin geesigii dirirta weynaaye darka loo cayaar lagu diliye dawgalba jiray aan deera u hirdiisay digaagiye Soomaaliyada weyn ma aha qariirad waa damiir waa hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan qabri Daxarre
waa oday Soomaaliyeed oo ku sugan Wajeer, waa dhalinyaro ku nool Dirdhaba, waa ubax Soomaaliyeed oo ku koraya Jabuuti, dhammaantoodna leh hal calool, hal cudud iyo hal cadow. riyada Soomaalida weyn waxay soo martay marxalado adag, gumeysi kala qaybinaya, dagaalo xuduudeed iyo muran siyaasadeed, laakiin sheekada Soomaalidu weli ma dhamaan. waqti kasta oo la isku dayo in la kala fogeeyo waxaa jira Soomaali jiil walba ka dhalata oo isu soo jiida. dhab ahaantii Soomaali may dhiman, Soomaali way dhaawacantay oo kaliya, balse way bogsan kartaa. waxaan arkaa ilmahaygii oo koraya isagoo akhrinaya taariikhda daraawiishta. waxaan maqlaa codkii awowgay ku dhahaa cunugayga, dalkaaga ha ka tagin, riyadaada ha seegin, difaaco oo madaxaaga korgey. sanadii 1960kii Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay deebtiin u soo bixiyay dhulweynaha Soomaaliyeed. dad Soomaaliyeed ayaa xorriyadooda ku dhisay rajo, waxayna rabeen inay la midoobaan walaalahooda weli halganka ugu jira xorriyadooda. Soomaaliya waxay ahayd meel indhaha Afrika oo dhan ay ku soo jeesteen. calankaas buluuga ah ee xidigta cadaanka leh wuxuu u muuqday sidii iftiin cusub oo ka baxay geeska Afrika. wuxuu ahaa rajo balanqaad ah in gumeysigii iyo kala qaybsanaantii la soo dhaafay aan dib loogu noqon. laakiin xuduudahaas ay reer Yurub inoo sameeyeen weligood ma ogolaan inaan hal qaran noqono. walaalkii jooga Wajeer, walaalkii Cali Sabiix jooga, walaalkii Doolow ku nool, walaalkii Hargeysa jooga iyo walaalkii Muqdisho joogaba, dhammaantood waa dad isjecel, waa dad qalbi ahaan isu dhow, laakiin xuduudii ayaa kala fogeysay. waa dad uu hal qalbi garaacayo, balse jirkooda xuduud baa kala jiray. dagaalkii Soomaali galbeed 1977kii wuxuu ahaa geesinimo, ma ahayn dagaal lagu doonayo dhul shisheeye, balse wuxuu ahaa mid lagu doonayo in lagu soo celiyo walaal Soomaaliyeed oo xuduudbeenaadka ku haray. qaran kasta wuxuu leeyahay midnimo uu ku faano, Soomaaliduna waxay leedahay midnimo ku timid dhiig, hidde iyo halgan, oo waxaan lagu soo iibsan karin macaawino, mana ahan wax la heli karo haddii aan garab istaagin. 1977kii oo taariikh Soomaaliyeed oo muhiim ah. Soomaalida waxay isku dayday ama ay u dhaqaaqday inay riyo u rogto run. waxaa dagaal galay wiilal aan lahayn daabado waaweyn iyo gacmo gadaal ka caawiya. taas halkaas waxaynu ka wadno ayagoonan haysan Soomaalida haliyadaas u dhaqaaqay, dad caawiya, garab taagan ama hiirsiiya iyo gaashaan, balse wata rajo aan leexleexan ama dariiq aan laga leexan. waxaa dhaawacmay midnimo, laakiin waxaa noolaatay damiir. raggaas waxay u dhinteen riyo aan weli dhiman, inkasta oo la dhaawacay. dhiigooda wuxuu ku dhex engegay xadbeenaadka oo inoo sameeyey gumeystuhu, kaasi oo aynu ku ballanay mar uun inaynu dhexdeena ka saarno ama aynu maydhno. I like to fight in order to liberate my country. But what can you do? I mean, do you know how to fire a gun? I will take my gun and go now to the front, unless I will liberate my country. And what about the rest of the people here? Soomaaliyada weyn ma ahan hal xuduud, waa hal wadan. maanta inkastoo oo dagaalo sokeeye, burbur dhaqaale iyo kala fogaansho siyaasadeed ay jiraan, haddana Soomaali weli waxay ku riyotaa maalin calanka buluuga ah lagu arkayo guud ahaan dhulka Soomaalida. taasi waa riyo dadka qaar ugu muuqata mid fog, balse Soomaali badan ay u arkaan qadarin qarannimo. maanta jiilkaygu garan karaa waxa dhacay, uuna daroosi karaa halka loo socdo, uuna qaban karaa waxa harsan. waxaan nahay jiilka riyada rumayn kara haddii aan garanno meesha aan ka nimid iyo meesha aan rabno inaanu gaadhno. qofka Soomaaliyeed ee maanta haddii uu yahay ganacsade, suxufi, arday ama halabuur, wuxuu leeyahay kaalin uu ka qaato riyadaas. waayo riyada Soomaaliyada weyn ma aha mid uu talqolo kaliya, waa dhaxal Soomaaliyeed. waxaa la yiri nin aan dal lahayn waa nin aan damiir lahayn, laakiin Soomaali waa dad leh hal dal, hal damiir, hal taariikh, hal diin iyo hal rajo. dal
dhalintiisa ayaa difaacata oo dhisata. Hooyo, aaway halyeeynimadii, hubqaadnimadii iyo aqoontii aan kugu barbaariyey. Hooyo, si aad iiga farxiso, noqonin dalkiisa kaalin u gala, cadaawaha soo hunguriyeeye jidgooyo u dhiga. Hooyo, dalkaaga ka tahriibin ee dhiso oo dheefso.